muddo 5 maalmood ah indhaha malaayiin dad oo ku nool qaaradaha adduunka ayaa isha ku hayay dalka Morocco oo aan ahayn dalalka badi qaybta ka ah meelaha ay ka dhacaan wararka hadalhaynta badan dhaliya. malaayiin dad ayaa shalay galabtii rajaynayay war farxad leh oo uga yimaada dalka Morocco, balse xalay fiidkii ayuu xaalku isu bedelay murugo kadib markii la soo sheegay geerida wiilkii qabsaday shaashadaha caalamka ee Rayaan Khalid. Allah u naxariistay Rayaan Khalid oo ahaa 5 jir aan nolol adduun waxba ka arag isla mar ahaantaana ku jiray xilligii barbaarinta ayaa maalinnimadii salaasadii ee toddobaadkii hore ay ahayd markii uu Rayaan ku dhacay dherarkiisu dhan yahay 62 mitir, balse ma uu gaadhin salka hoose ee ceelka. waxaase uu ku dhacay meel ceelka bartankiisa ah oo qotonkeedu dhan yahay 32 mitir. aabbaha wiilkan dhalay oo lagu magacaabo Khalid iyo dad kale oo deegaanka ayaa bilaabay in ay goobaan wiilka oo saacado badan maqnaa, iyadoo raacdadu markii dambe heshay wiilka oo ku jira ceelkan. waxaana markiiba loo dhaadhiciyay ceelka wiil dhalinyaro ah oo xadhig lagu xidhay, balse markii uu 20 mitir socday ayuu qayliyey kadib markii ay neeftu qabatay, iyadoo degdeg loo soo saaray. arbacadii toddobaadkii hore oo bishu ahayd 2 ayay kooxaha gurmadku goobta soo gaadheen, waxayna u direen nin xidhan qalabka loogu tala galay goobaha noocana, iyadoo markaasi la ogaaday inuu nool yahay Rayaan Khalid. waxaana loo daadajiyey oksijiin iyo biyo. maalintii Khamiistii oo bishu ahayd 3, kooxaha gurmadka oo adeegsanaya cagaf-cagafyo waaweyn iyo qalabka kale ee wax lagu qodo ayaa bilaabay inay qodaan godceelkan barbarkiisa ah si loo gaadho meesha uu wiilku ku jiro, balse hawsha ayaa si taxaddar iyo gaabsi leh loo waday, iyadoo shaqaale carbisan laga soo qaaday qaybaha kala duwan ee dalka. shaqaalaha ayaa qoday 32 mitir oo ceelka hareertiisa ah, iyagoo muujinayay feejignaan, waayo dhulku waa buur dhagaxaan leh oo adag iyo ciid jilicsan oo dumi karta. maalintii Sabtidii, qodayaasha ayaa waxay gacanta ula tageen godka, iyadoo markaasi ay u dhinaayeen waxaan aad u badnayn. iyadoo fiidnimadii xalay la isu diyaarinayay dabaaldega guusha laga gaadhay soo badbaadinta Rayaan Khalid, hase yeeshee jawiga ayaa mar keliya isbedelay. kooxaha gurmadka ayaa gaadhay Rayaan iyagoo ku wareejiyey qaybaha caafimaadka oo u diyaarsanaa inay wiilka gaadhsiiyaan goob lagu dabiibo. boqolaal dada oo tubnaa aagga godka ayaa ku soo xoomay baabuurkii la saaray, iyagoo ku dhawaaqaya Allahu Akbar, balse muddo yar kadib waxaa lagu dhawaaqay in uu geeriyooday Rayaan Khalid, waxaana la sheegay in aanu nololba kaga soo bixin ceelka. boqor Maxamedka 6 ee dalka Morocco ayaa khadka taleefanka kula hadlay waalidiinta dhalay Rayaan, isagoo uga tacsiyadeeyay geerida ku timid wiilkooda Rayaan. inkastoo Rayaan uu godka ku noolaa saacado aad u dheer, balse waxaa bannaanka loo soo saaray isaga oo meyd ah, waxaana sababta dhimashadiisa lagu micneeyey dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in meeshu aad u qaboobayd oo uu xamili waayey qabowgii aadka u darnaa ee halkaasi ka dhacayey. maadaama xilligan dalka Morocco uu ku jiro xilli qaboobaa, darajadiisuna ay gaadho 6 digrii habeenkii. waxa kale oo dhimashadiisa lagu sababeeyey inuu u jiifay beerka, taasina ay yaraysay oksijiintii uu tooska u qaadan lahaa. si kastoo ay u dhacday, Rayaan ayaa xalay dunida sagootiyey, isagoo raad kaga tegay guud ahaanba dunida muslimka, waxaana xalay baraha bulshada isqabsatay tiiraanyada loo muujiyo wiilkan, iyadoo dadku muujinayaan siday uga murugoodeen geeridiisa. wuxuuna noqday mawduuca ugu hadalhaynta badnaa ee 4 maalmood ee la soo dhaafay. mawduucyo aad loo qaadaa dhigi lahaa oo ay ka mid ahaayeen ciyaarta koobka qaramada Afrika ay isugu soo hadheen Senegal iyo Masar ayaa la hakiyey in sidii la filayay loo falanqeeyo. sidoo kale jimcihii waxaa badi dalalka muslimka looga duceeyey Rayaan Khalid. hase ahaatee riyooyinkii iyo farxaddii la wada naawilayay waxay soo afmeermatay xalay saqbarhkii, iyadoo markii godka sidaa looga soo saarayba daqiiqado yar kadib lagu dhawaaqay geerida Rayaan Khalid. Allaha u naxariisto Rayaan Khalid.